wadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed waa warkii shiilaa ee aan uga barateen ee mar walba lagu dhex shaandhayn jiray propagandada deegaanada Soomaaliyeed ka socda. maanta waxaanu ka hadli doonaa 5 qodob oo isku sidkan. Muuse Biixi khudbadii uu akhriyay bilaa nuxurka ahayd ee Nawiye Nagaad uu ka dhex akhriyay 10 milyan ee dollar ee dawladda federaalka uu Muuse Biixi weydiistay xilligan xaadirka ah sida federaalku ay ugu damqadeen magaalada ama degmada Salaxley burburkii ka dhacay iyo kuwii hudheedka u geeyay baqdaadi ninka la yiraahdo ee bankiga dhexe u hayay heegada ee kamid ah jinka dagaagay ee muxallalka ah ee halka jooga oo riwaayadii qarniga inuu dhigayay geesiyaashii Salaxley hudheedka ku gubay oo aragtaan weyn moodema bay weyneyn dibadda isa soo dhigay waayo cid dambe oo meel lagu hayn karaa way soo dhamaatay waa inta inagu aynu aqbalno dhulboobkii reer Biixi oo wali sii socda iyo nimanka magaca baarlamaanka isku magacaaba aynu bixinay guriga marxaati beeraalayaasha oo ninkaasi uu soo booqday. aan ku horeeyo guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee guriga marxaati beeraalayaasha ama baarlamaanka sida iyagu isu yaqaanaan ayaa ninka Baqdaadi oo kamid ah nimanka meesha ninka wax dhacaya u noqday muxallalka ama asturaadu ay ka wada hadlayeen sidii hantida loo ilaalin lahaa. waxa weeye wali iyo miirqab mid uunba lagu wada hadlaa ingiriisku waxay yiraahdaan common sense or nonsense. guddida waxay ku qurux badaan lahayd in magaceeda loo bedelo guddida boobka jagooyinka iyo hantida ummadda suuxsan ee ay urursadaan heegadu. jasiiratu waqwaq beeshan la yiraahdo sida u aragtaan lacagta uu ka hadlayay ninka Baqdaadi ama waraaqaha aan hore ugu soo counterfeitka lacagta la yiraahdo waraaqaha beenta ah cashuurta kuma qaadaan. cashuurta waxa la idaga qaadaa US dollar waayo iyagu way ogyihiin waxa la istaan waraaqa yihiin marka waraaqa kuma bedeshaan wixii loo samaystay waraaquhu arrinta ma ahayn. waa magaalo khayrkaana wacay adnaha ka maqnaanin 3 jeerna cashuurtii ayaa la laabay oo kor la idigu kiciyay. waxa kaloo idin labaysaa oo la lahaa annaga ayaa sixirka goynayna hard currency-ga ama dollarka. sababta sixirka loo goynaya waxa weeye waraaqahan oo istaagay oo aan dib loo soo daabici karaynin inta ay xafiiska ku haystaan mashiinka mooyaane ayaa la doonayaa in wax dhammaan waxa la idin soo diray boqolka dollar lagu xaraysto idinkana guri iyo gaari iyo jago intaba la idiga iibsado waraaqaha isla waraaqihii laakiin la idigu matalo inay meesha xukuumadda ka dhisan tahay. 10 milyan oo dollar ee jasiiratu waqwaq ka dalbatay dawladda federaalka waana arkaysaa caruurta yaryarna waxa lagu xidhayay calan yar oo buluug ama mara cirka u eg ayay xidheen. taa macnaheedu waxa weeye waa calaamad munaafiqi waxa iyaga dantu ugu jirto ee federaalka kaga xiran maadaama ay maamul goboleed yihiin waa mubaax masterka waa mubaax laakiin idinka ka hudheerka diida jeel ayaa la keenayaa nasiib wanaag inkastoo nimanka u mahadnaqay dhalinyarada ah oo ay xoreeyeen. xabad ayaa laga ridayaa dhulbaanta dhexdiisa oo maanta ka dhacaysa oo laga fiirgareynaya meesha Hargeysa la yiraahdo rasaastana laga diraya lacagtana laga diraya. waa arkaysaa Sanabangaal ninka la yiraahdaa indho markuu la hadlayay ninkii meesha marxaati beeralayasha fadhiya xildhibaanka lagu sheego warka sida caruur yar oo fasalka labaad dhigta war adiga maxaa ka dhintay war adigana maxaa ka dhintay barigaano Ethiopia raacnay jabhada xabashidu ayay oran jireen kuwa xagga Soomaalida ka dhintay iyo kuwa xagga labadaba isku dara halkii ayay maraysaa la isuma baqarsanin meesha ay halka ka maraysaa. waxa kaloo halka uga mahadnaqaya dawladda federaalku sida uga danqatay degmada Salaxley waayo waa waajib sharci ah oo ka saaran kii cashuurtooda qaadanayna hudheed iyo xadhig ayuu isugu daray. cashuurtii airportkiina iyo dekadihiina iyo xoolaha nool ugu badan ayaa leedin labada dhanba midna rasaas ayaa la idin soo siiyay. airportkiina inta crasher la soo kordhigay centerka magaalada ku dhex yaalay dhagxaan burburinaya ayaa buurtiina idinkoo soo noolayd ugu dulaastay oo aydan xitaa garanaynin deegaanka degantiisa duweeka wax allaale iyo wixii industrial waste ka ahaa ama qiiqaato ama chemical ha ahaato sun af Soomaaliga wixii sun ahaana saasa loogu soo sayraa 500 ilaa 1000 qof oo meesha fadhiya ayaa kansar ku dhacay ama daacun ku dhacay ama wax ka xum ay ku dhaceen wax compensation siinaya iyo wax kaga soo noqda xaafadda xitaa xaafadda shaqaalaha joogaana kama shaqeeyaan in meel kale ka soo doolay ayaa crasher la soo kor fadhiistay hadday sanqartay iyo hadday qiiq tahayba. taa macnaheedu waxa weeye lacagta halka ka soo baxda hudheed ayaa xaq uga leedin kuwa boorama fadhiya Simoori inta in leeg oo sun ayaa lagu dhex daadiyay dhammaan imika waxay soo bedeshay areadaas iyada lafteeduna lama degaan industrial waste ama suntiina waa lagu daadinaya 3 jeerna
iyagiibaa dulsaar laydinkaga wada dhigay dhammaantiin cashuurtiinii in ay reer gaarahi ay qaataan. aan soo gunaanado khudbadii muuse aan ka bilaabo. waxaa ceeb ummadan ku ah qof noocaas ah oo pathological liar ah. pathological liarku waxa weeye qofka beenta waa u dhasha, waa maskaxiyan xanuun ku dhaca. taa barnaamij dhan oo gaara kanka ku xiga ayaa kasoo samayn doonaa. wax allaale wixii been lasoo akhriyey ama 25 ha ahaato ama 100 ha ahaatana waan isugu kingeyn doonaa. marka waxaa garan doontaan dadka aad la hadlaysaan ee deegaankan ee taariikh boobka ah, ee dhaqan boobka ah, ee waraaqa boobka ah, ee lacag boobka ah, ee guryo boobka ah inay yihiin dad xanuunsanaya mentally, psychologically, dad aan maskaxdoodu fayoobeen oo dhibir ah inay yihiin oo DNA-doodu ay tahay. taas ayaan idigu caddayn doonaa. kan horkacayaana uu ka tirsay the end of the road, halkii u soo dambeysay the end of the road, halka wadda dhuxulaadku ku soo goodo ayuu maanta taagan yahay. laakiin dhallinyarada ayaan mar labaad halkan kala hadlayaa. aan leeyahay hali maalin bay ceel joogtaa, maanta uun ayaa xagga laysaga riixi karaa. wax hordhaca aan lahayn, wax xigmada aan lahayn, wax kaftara aan lahayn, mahmaah aan lahayn, wacyi aan lahayn, dareen bani aadamnimo aan lahayn. waayo empathy ma laha pathological liarsku. halkaasay uga baxaysay sanqadhii dumarkii kala jeexan, buurta kala jeexan fadhiyey baroortoodu markuu now iyo nagaad meesha kula hadlayay. laakiin wax dareena oo male inta uu dhacayo iyo inta uu qaadanayo. waayo dad waalan ayaa dadka meesha joogaa loo haysta. dareen bani aadamnimo male, been iyo afgabnaynimo. aadan fahmayn hadalku meel uu ka socdo iyo meel uu u socdoba. horey Soomaalidu tiri dhagaxna meel dhow ku dhacaa, weerna meel dheer. ummaddu way ogtay waxa meesha ka jira ee la matelayo ee ama guriga beeraalayaasha, markhaati beeraalayaasha laga matelayo, ama ta muuse bixiidii matelayo, ama ta ninkan meeshan baanka lagu sheegay waraaqaha forsi yaalaan counterfeitka ee Baqdaadi uu fadhiyo. saddexdanba waxa weeye oo madadaalidii iyo suuxniinkii. waayo wixii hore ayaa soo gaabanaya. nabadgelya ayaa lagu celceliyay. halkay nabadgelyadu ka imanaysa marka intaas oo daaroodna la dumiyo, magaaladii dhan ee duntayna RRU salaxlay la korgeeyo, dhallinyaradii hudheerka diiday laga soo kaxeeyo, kuwii buurta kala jeexan ooyayaan, dhul bahante hubka iyo rasaasta isla dhacayaan, Hargeysa laga dirayo, boorama ay tahay jeelkaa dusha ka furan. suuxniinkii ayaa soo dhammaanaya. waxii la soo maray iyo beentii iyo pathologicalkii lagu wada sheegashan jiray ayaa soo guraya. marka waa the end of the road. EU-da ama European Unionka Maraykan intuba way kasoo istaageen beentan iyo musuqmaasuqan iyo dhacan iyo eexdan. marka waxaa la doonayaa in mar labaad lagu muxallalo doorasho ayaa la qabanaya. dimuqraadiyaddii lafteedii ayaa khalad laga fahmay. afgembigii dhacay haddaynu si saxa u nidhaahno sidii dad degala ayaa laynoola hadlayaa, ama dad ku nool caalam albarsakh marka uu qofku dhinto ee u dhexeeyo geeriyo nolosha aanu aakhirana tegin ifkana ka tago. afgembigii 9 bilood ayaa dib loo dhigay ayaa layidhi guriga markhaati beeraalayaasha laynooga sheegay. way waxaas oo dhan waxaa loo matelayaa waxa weeye meeshii ayaa soo istaagtay. 4tii taayir ee ku rogmaysay ee ahayd ummadan kale ee cashuurtana bixinaysa laguna shaqaysto, propagandadana idaacadaha lagaga wado ayaa soo gaabatay. waa riyaraac, waa muuse biixi, waa taani, waa maxkamadda sare, waa Saleeman Gaal, waa inay ka ahayd, waa gabadhii guddidii hore ee laga cabanayay ee doorasho ku sheegtay inqilaabka ka tirsanayd. what a wonderful team. waxa weeye waa majlis shuura khusuusi weeye. waa in dadkii ugu daacadsanaa ayaa la inoo soo xulay oo tan inoo qabanaya. waa arkaysaan maamul wanaag ayuu ka hadlayay. wax ka wanaagsanayd in jaga wanaag laga hadlo meesha aynu joognay. baroortii dumarkuna halkaas ayay ka baxaysay meesha uu ka hadlayay. waayo wax empathy oo jirta ma jiro. xisbigan la yidhaahdo kadare waa arkaysaan iyo waxa weeye waa reero, waa laba reer oo shuraakoobay oo iminka iyagii sii kala faliidmaya. waayo pathological lawyerka ama cudurrada maskaxda bini'aadanka kaga dhacaa marba sida basasha qolofteeda ayay usii kala dhirantaa. iyagii ayaa sii kala dhilmaya. waa arkayso sidii qof hadalbadada ama caruura markuu meesha muuse bixi ka hadlayay. dumarkii wax lacagta lasoo siiyey ee now iyo nagaad jaantii iyo sacabkii way isla qabsan weyday. waayo wax lagu qoslo iyo wax sacab loo tumo iyo wax macno samaynaya iyo hal erey oo is haystaa meeshii kasoo bixi maayo. waa nala soo shaqayseen, waxba idii qaban mayno, waxba idii maanaan qabanin. in dimuqraadiyad laydii keenay ahayd dhaqanka Soomaalida aan ogolay. maxaa idinka idilad miyaan isdaahay? waxaa dhaamay isbatoore gurwada hiyaashiisiyaad bare ka mid ah oo hanuunin ka hadlaya oo mikrofoonkii wiiq qoran jiray ee lagu bilaabi jiray ka hadla. haddaba dhalinyaroy waxaas oo dhan oo durbaano oo loo garaacaya, waxa loo garaacayaa waa masiirkiina. dadka waaweyn wixii aniga iga bilaabma da'deeda iyo wixii kasii weyn waxba weydiin maysaan. halka ammaanta joogtaan raggeedii dhigay weeyaan. tiibaa weli la sii wadaayo durbaan loo garaacayaa. waa in kabiyo xaarkeedu waa la isku tuuraya, la isa soo dhaafiyaa. jindagaagays intaa ka badan ma sii wadi karno. sixir barar ayaa jira, macaluul ayaa meeshan ka jirta, boob ayaa ka jira, waraaqo beena ayaa ka jira, waxaa jira maalinku taajir ayaa meeshan jooga.
deegaanadii dadka maatadu lahaayeen oo la kor tuban yahay baa jira marka burbur ama masiiba idigu timaado waxaa arkaysaa in hudheerkaabaa laydii keenayaa kaabihii dhaqaalaha aan lahaydeen oo dhanna dad kale ayaa gacanta loo geliyay usoona shaqo tegaya wax alla wixii sun ee kasoo baxana xaafadihiina kusoo sayraya idinkiina halkaasaa sidii yoomal qiyaamihii aa markhaati ka tihiin aad sugaysaan in labadii kafadood laydii kala saaro cashuur joojin baa waajib ku ah dhammaan dadka meesha jooga inay dhalinyaradu ay yeelato meelo ay ku kulmaan ay ku wada hadlaan baa waajiba in lasoo mudaharaado ayaa iyana waajib ah oo aan meelna looga leexanaynin intaasaan idigu soo koobayaa dhammaantiin waa mahadsantiin nooli kulanteen